بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحافة قارك اللولي هي يكو حكومة دبا وحنا هذا قم هذا قيا كلن كور صحافات كايات كسوق قيب قشين والصحافات كني وحدارية هاي مدحوينها لو دورتي سوماليا حكومة جمهورية سومالان waxay soo dhaweynaysaa go'aankii ka soo baxay kulanadii istabajooga ahaa ee ay mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya ku kala coganayeen mudanihii loo dhiibi lahaa hoggaanka iyo talada dalka aanu jaarkana ee Soomaaliya mudan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waanu ku hambalyeynaa xilka loo igmaday waxaananu Allah uga baryeynaa inuu xilka iyo mas'uuliyadda ku asturo Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay mar walba muhiimadda iyo mudnaanta koowaad siinaysaa daris wanaaga iyo nabad ku wada noolaanshaha labada dal iyo labada shacab ee walaalaha waxaanu soo dhaweynaynaa nabad deganaansho iyo xal waara oo loo helo arrinta murugada leh ee Soomaaliya rubuc qarniga ka jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa si dhab ah uga go'an in la dardargeliyo oo la sii wado wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya haddaba si looga gun gaaro wada hadallada labada dal u dhaxeeya waxaanu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya taladeeda loo dhiibay hadda ugu baaqaynaa inuu ka leexdo jidkii qaldanaa ee uu qaaday madaxweynihii isaga ka horreeyay ee ku suntanaa faragelinta iyo carqaladaynta qadiyadda iyo go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Farmaajo waxaanu kula talinaynaa inuu muhiimadda koowaad siiyo sidii uu dalkiisa iyo dadkiisa ugu horseedi lahaa nabad iyo deganaansho waarta taasi oo ay ku jirto danaha iyo masladaha labada dal ee jaarnimo sidoo kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaanu si cad ugu sheegaynaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay matali karin shakhsiyaad danaystayaal ah oo Muqdisho laga cugtay waa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aanay shacabweynaha Soomaaliland dooran ama aanay xil u dhiibanin ummadda Soomaaliland waxaa matala oo kaliya kana mas'uula madaxweyne ku-xigeen ku yimid doorasho xor iyo xalaala golo baarlamaan iyo golo guurti oo iyaguna ku yimid rabitaanka shacabka guntiga gabagabadii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xasuusinaysaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay nidaamka federaalka ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay in golo kasta oo caalamiya oo xaajadeeda lagu gorfaynayo ay Soomaaliya hor fadhiisato ay kana la xaajooto hal arrin oo kaliya qadiyadda go'aansitaaga iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland intaas ayaa warsaxaafadeedka maanta u daarnaa wixii su'aalaha diyaar waxaa horta gef iyo meel ka dhac iyo ummadda maangad lagu samaynayaa madaxweyne ku yimid rabitaanka shacbiga oo ummadda Soomaaliland ay u codeeyeen inay rag yiraahdaan ma taliyo oo go'aanka isagu ma gaaro oo waxa go'aanka gaara Maxamuud Xaashi iyo Baashe waa gacan yarayaasha madaxweynaha isaga dekreeto ku magacaabay berrina ka qaadi kara go'aan kasta oo xukuumadda ka yimaada waa go'aan uu madaxweynuhu gaaro taladiisii iyo himiladiisii iyo horseedkiisii ayaanu qarankani ku socdaa waxaan leeyahay ummadda uma baahna maanta kicin iyo abaabul iyo aafo in loo horseedo aafo iyo abaabul iyo ma garanaysaa nabadgelyo darro dhaxalka iyo cawaaqibta ay leedahay waynu garan karnaa mudanayaasha xisbiga macaaridka ee wadani wixii fikira ee wanaagsan ee talada iyo maslaxadaha ummadda dalku ay ku jiraan waanu soo dhaweynaynaa laakiinse in la yiraahdo kaca oo ka hortaga qaranka danaha qaranka wixii ku aslaxayaan oo mudaharaadii abaabula horta waa qalad wana ayaan daro go'aanka arrinta saldhigga military ee Berbera mas'uuliyaddaasi waxaa leh xukuumadda meel marinteeda iyo ayidaadeeda in laga ogolaado xukuumadda inaan laga ogolaana labada gole ee sharci dejinta la golaha guurtida iyo golaha wakiilada haddii ay madaxweynaha ay ka diidaan oo yiraahdaan madaxweyne waxaan aad la soo saxeexatay ama arrintan aad imaaraadka saldhigga Berbera ku siinayso qalad iyo madmadow baa nooga muuqday ka noqo madaxweynuhu ka noqonaya laakiin sanima aan ummaddu u diran xil
inuu yidhaha madaxweynuhu dalka ma maamulo waa gaf iyo meel ka dhac waddani waxa u muhiima inay himilo kale iyo hadaf kale oo siyaasadeed oo ay ku bedeli lahaayeen xukuumaddan iyo xisbigeeda inay la yimaadaan laakiinse cayl iyo cambaarayn taasi somalilan shicibkeedu way ka gudbeen sidoo kale madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta iyo raggii kale haldoorka ahaa ee iyaguna tv-ga isla soo taagay aflagaado iyo cay iyo erey maagida waa qalad madaxweynaha u kaalaya wixii tale eed haysaan iyo wixii taageeraad haysaan iyo wixii toosinaad haysaan danaha qaranka ay ku aslaxayaan ula yimaada bannaan laga hadlo looma baahna shicibka maanta somalilanna nabadgelyada iyo xasiloonida iyo ilbaxnimada iyo deganaanshaha lagu majeerto idinku waxba kama bedeli kartaan xukuumadda ka mas-uula xukuumadda lagala xisaabtamaya xilka iyo mas-uuliyadda dastuuriga in loo ogolaadana labada golo qaran bay saaran tahay waad mahadsantahay magacaygu waa xasan maaldigar dabcan waxaa tahay afhayeenkii madaxtooyada somalilan xisbiga macaaridkee waddani madaxtooyada somalilan gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka waxay ku eedeeyeen inuu xidhay maayar ku-xigeenkii magaalada boorama iyo sidoo kale mas-uul ka tirsan xisbiga waddani eeddaa maxaad ku difaacaysa eeddaasi horta eed jiritaankeeda in la hubiyo ay tahay inuu madaxweyne ku-xigeenku uu isagu shakhsiyan ka dambeeyey xidhay taasi waa su'aal su-aashaan afkooda caddayntii baa laga rabaa inuu madaxweyne ku-xigeenku amar siiyey oo uu xidhay arrimo waxay intaa kalena hay-adaha nabadgelyada iyo hay-adaha dambi baadhista ayaa hawshaa ku shaqa leh way jirtaa iyo ma jirto midnaanu kuga odhan maayo laakiinse hal mid baan kuu sheegaya sidan madaxweynaha afhayeen uga hayeen madaxweyne ku-xigeenkana afhayeen oo afhayeenkii madaxtooyadaan ahay ma la hayo mana jirto cabdiraxmaan saylici inuu ka dambeeyey oo uu xidhay ninka aad sheegayso waad mahadsantahay saldhigga military dowladda imaaraadku ay ka hirgelinayso magaalada berbera imaaraadka iyo dalka yemen oo somalilan ay jaar la tahay gulif colaadeed baa ka dhexaysa waana dareemi kartaa marka xagga soodinka la eego intay isu jiraan yemen iyo somalilan gulifta colaadeeda ka dhexaysa dalka yemen iyo sidoo kale imaaraadka dhibaatooyinkii mashaqooyinka yimaada ila waa dal dagaal ka dhexeeye sahli kara in dagaalo ay dhex maraan oo madaafiic iyo waxyaaba qoryo noocaas la adeegsado dhibaatada ka timaada xukuumadaha sida qaadaysa hal arrin baa aan doonaya inaan hoosta ka xariiqo saldhig military oo laga bixinayo dekada magaalada berbera oo dalka imaaraadku ay xiisaynayaan go'aankeega iyo meelmarinteeda horta xukuumaddaa leh somalilan waxay u baahan tahay inay yeelato saaxiibo international caalamiya oo isku hadlayn karto wax la qabsan karto military ahaan siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba dowladda yemani waa dowlad aynu darisnoo biyo inoo dhexeeyaan colaad toosa oo ka dhaxaysa dalka yeman iyo dalka imaaraadku ma ogin ciidamo ma garanaysaa imaaraadku ay leeyihiin oo somalilan intay yeman ka duulaan somalilan oo yeman ku duulayaana taasina ma jirto dowladda somalilanna waa dowlad leh dhammaan makaaniyaadkii ay ku difaacaysay qarannimadeeda cid kasta oo soo doonatana waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay dowladda Soomaaliland ay iska difaacdo laakiin se colaad taagan oo aanu ognahay iyo bala aanu ognahay ma jirto saldhigan military-na waxa weeyaan arrimo fara badan oo ma garanaysa maslaxadda iyo danaha qaranka ku aslaxayaan ayaa xukuumadda Soomaaliland uga muuqda waa hordhac waa arrimo ma garanaysa u baahan in si fiican looga baaraandago taana madaxweynaha ayaa ma garanaysa ii sheeg go'aanka gaarideeda golaha hordhigaya markay noqoto xagga colaadaha adduunyada waxa loo baahan yahay inaad ku dhacdo haddaanad ku dhac lahayn ood mar walba colaad ka baxdo horumar ma hiigsanaysid saas daraaddeed yeman ilaahay baan uga baryaa inuu colaadaha ka damiyo laakiinse saldhigga military ee imaaraadku xiisaynayaan waa dana istaraatiijiyad waa dana dhaqaale waa dana horumar waa dana saaxiibtinimo iyo kuwa diblomaasiyadeed taasina waxa u baahan maanta Soomaaliland waad mahadsantiin